Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada channelkeena Hijra Jacaylka. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa sheeko faneed la magac baxday Arsis. Buuggan waxaa qoray iyo sheekadanba qoraaga caanka ah ee Axmed Al Xamdan. Sidoo kale buuggan waxaa Soomaali u turjumay runtii laba shakhsi ayaa turjumay. Midi waa Maxamed Qaysar, midna waa Aadan Sahan. Marka nuskhaddan aan hayo ama qaybtan buuggan aan hayo ee sheekada ka soo dayn doono waxaa iskale Maxamed Qaysar. Haddii aadan diyaar u ahayn xaqiiqada, waxaan kugula talinayaa inaadan rogin boggan sheekadanna meesheeda iskaga celi oo raadso buug kale. Maxaad u rogtay bogga? Weli fursad ayaad u haysataa inaad ka laabato. Ma hubtaa? Ma og tahay wax ka xun dhimashada? Waa xaqiiqada kugu sugaysa gudaha sheekadan. Waa mid ka mid ah habeenadii ugu deganaa. Dayaxu wuxuu ahaa mid buuxa oo dhammaystiran. Sidoo kale wuxuu taagnaa bartamaha cirka si aadahna wuxuu ugu dhowaa dhulka, sida in dayaxu habeenkaas go'aansaday inuu jebiyo dhammaan xeerarka dabiiciga ah oo uu si ula kac ah ugu soo dhowaado buuraha Najid si uu u neefsado hawada nadiifta ah ee labadegaankeedu leeyahay. Inkasta oo uu dayaxu dhammaystirnaa, haddana xidigaha oo dhalaalkoodu luulka u eg watay ayaa ku baahay guud ahaan cirka, sida inay doonayeen inay markhaati ka noqdaan waxa dhici doona berri, gaar ahaan 12 duhurnimo. Gaari madow oo nooca 4 lugood ku socda ayaa waxa uu soo hor istaagay albaabka mid ka mid ah fiilooyinka. Waxaa ka soo degay Haashim isagoo gacanta ku siday dhowr bac oo uu ku soo iibiyey dukaanka. Waxa uu qaaday dhowr tallaabo isaga oo u socday dhanka gurigiisa. Waxaase jirkiisa dheer ee kala baxsan sikadiisa ku soo gaadhay dareenka naacawda diiran oo aad u carfoon. Wuxuu soo baxsaday furihiisa wuxuuna furay albaabkii isagoo yidhi, gacalisadeedii waxyaabihii aad dalbatay waan kuu keenay. Balse ma uusan helin wax jawaab ah. Mar kale ayuu ku celiyey oo ugu yeeray, may maqashaa Balqiis? Gurigu wuxuu u ekaa mid maran oo aanay cidina joogin. Taasi waxay ka dhalisay inuu isweydiiyo sababta ay u maqan tahay, balse waxaa soo dhawaaqay taleefankiisa. Markii uu fiiriyey shaashadda, iyada ayaaba soo wacaysa. Jacaylka dhabta ahi waxa uu labada qof ka dhex abuuraa dareen iyaga isku xira, kaasoo suurtagal ka dhiga isdhaafsiga fikradaha iyo dareenka. Waana taas sababta sharaxaysa in mararka qaar aan fariin ama wicitaan uga helno qof aan daqiiqadaha maskaxda ku haynay. Balqiis waxay aaminsanayd jiritaanka dareenkaas, waxayna sidoo kale rumaysnayd in haddii qofku aamino oo uu joogteeyo inuu awoodayo isticmaalka tamartaas kana dhigo mid u adeegta danihiisa. Laakiin Haashim waxa uu ka mid ahaa dadka dhegaysta arrimahaasi si uu isugu maaweeliyo oo keliya, balse ma aaminsanayn jiritaankooda. Wuxuu had iyo jeer diidi jiray fikradda Balqiis, mararka qaarna wuxuu ku qosli jiray oo uu ku jeesjeesi jiray. Taasina waxay ahayd sababta uu doortay inuusan u sheegin inuu ka fikirayay ka hor inta aysan soo wicin, si aysan arrintaasi ugu adeegsan caddayn ahaan si ay ugu xoojiso fikraddeeda jiritaanka dareenka ay aaminsan tahay. Taleefanka ayuu qabtay, waxa uuna maqlay codkeeda jilicsanaa ee qalbigiisa ku weynaa. Gacaliye, waxaan kuu soo wacay si aan kuugu sheego arrin muhiim ah. Iyadoo aan fursad u siinin inuu weydiiyo waxay doonaysay, ayay si toosa u tiri, aniga iyo gabadhaada waan ku xiisnay. Weli ma ku adkaysanaysaa inaad si toos ah ula xiriiri karto iyada? Hadalkiisa kaftanka ah kama aysan helin, sidaas darteed waxay tiri, ma waxay kula tahay inaad waalanahay? Dhab ahaantii haa. Doorashada daraasado badan ayaa sidaas yidhaahdaa. Waxay sheegaan inaad waalan tahay. Maya, waxay sheegaan in hooyadu ay dareemi karto ilmaheeda xilliga uurka. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay gabadhaadu hadda kuu sheegayso? Rabitaankiisa ayaa ku guulaystay. Markaas ayuu yidhi, rabitaankiisa ayaa ka guulaystay. Markaas ayuu yidhi, maxay leedahay? Waxay leedahay inaad tahay aabbaha ugu fiican ee ay gabadh kula heli karto adduunkan. Waxay kaloo leedahay inaad tahay qofka ay ugu jeceshahay qalbigeeda iyo nafteeda, inaad tahay tusaalaheeda iyo geesigeeda. Hadalladeeda malaawaalka waxay wejigiisa ku abuureen dhoola caddayn aad u degan. Haashim waxa uu waalidiintiisa weydiiyey isaga oo yar shil gaadhi awgii wuxuu noloshiisa oo dhan ku hamin jiray inuu helo carruur ugu yeerta aabe oo indhahooda ka arko dhalaalka jacaylka, dhalaalkaas oo indhihiisa ka madhnaa intaa u noolaa. Markii ay Balqiis ugu bishaaraynaysay inay uur leedahay sanad kadib guurkooda, waxa uu dareemay farxad aan xad lahayn oo dhinac walba kaga hareeraysan. Wuxuu rumaysnaa in warkaasi farxadda leh uu noqday gaashaan uu isaga difaaco murugada nolosha oo dhan. Tan iyo maalintaasi wuxuu yeeshay dhaqan la yaab leh. Mar kasta oo dhinac u seexdo xaaskiisa, waxa uu gacanta saari jiray caloosheeda. Balqiis mar walba waxay aaminsanayd in dhaqankaasi uu yahay mid iska caadi ah. Dhab ahaantiis ma ahayn wax caadi ah, waayo Haashim wuxuu sidaas u samayn jiray si uu u salaamo ilmaha uurkeeda ku jira. Haashim
kuma uusan eekaan salaantaas malaawaalka oo keliya balse wuxuu sidoo kale la hadli jiray ilmaha caloosha ku jira isagoo qalbigiisa waxa ku jira kaga warrami jiray habeenkii oo dhan. Wuxuu la gelay balan iyo axdi inuu mar walba la joogi doono oo uu ilaalin doono weligiis. Si hoose ayuu la sheekaysan jiray ilaa ay hurdadu ku adkaato oo ugu dambayn ka seexdo. Haashim wuxuu u dhaqaaqay dhanka jikada isagoo taleefanka codka u furay. Wuxuu la hadlayay Balqiis isagoo alaabtii uu u keenay ku xareynaya qaboojiyaha. Intee joogtaa gabadhay cayilnayday? Waxaan imid guriga waanan ku waayay. Meeshii lug baxsiga ayaan aaday. Maxaad ka samaynaysay halkaas? Waxaan samaynayaa waxay dadku sida caadiga sameeyaan. Waan ciyaaraya. Cod dheer ayuu ku qoslay markaas ayay Balqiis tiri. Maxaad ku qoslaysaa? Waxaan istusay muuqaalka. Waa arrin lagu qoslo in la arko maroodi yar oo ku dhex ciyaaraya meel dadweyne joogaan. Ku jeesjeeska ka daa calooshayda. Anigu kuma jeesjeesayo gacalisadaydii. Waan kula kaftamaya oo keliya. Haa, mahadsanid faahfaahintaada. Isagoo laabta hagaajinaya ayuu yidhi, sow maahan inaad nasato xilligan. Dhakhtaradaydu waxay igula talisay inaan socod sameeyo ilaa daqiiqadaha ugu dambeysa dhalmada. Waxay tiri arrintaasi waxay fududayn kartaa dhalmada. Sidoo kale waxay sheegtay arrin kale oo fududayn kara. Waa maxay? Ayuu ku yidhi. Inuusan ninkeedu ku xanaaqin oo si macaan ula hadlo ayay ugu jawaabtay. Ma intaaba in dhakhtaradda haweenka ay sidaasi ku tiri? Haa, waan hubaa. Hadda idheel adigoo mahadsan. Ma kugu filan miya inaan mararka qaar kuugu yeero Balquusa? Ma garanayo si aan kuugu sheego laabjeexa ayaan ka dareemayaa naanayskaas. Haashim ayaa dhoola caddeeyey iyadoo Balqiis ay ku tiri idheh hadal macaan fadlan. Waad ogtahay inaanan kuu fiicnayn, ayuu ugu jawaabay. Isku day xitaa hal mar noloshaada. Wuxuu qabay jacayl la mid ah midka uu maxbuusku u qabo xorriyadda, laakiin dabeecadaha uu ka dhaxlay bulshada bariga dhexe ee uu ku dhex noolaa awgeed. Haashim waxa uu dareemi jiray xishood marka uu doonaya inuu muujiyo jacaylka uu qabo xaaskiisa. Sidaas darteed wuxuu had iyo jeer u adeegsan jiray kaftan si uuna uga baxsado xaaladaha noocaasa. Dhammaan dumarka dunida adiga ayaa u qurux badan maroodiga yaray. laa xawla walaa quwata ilaa billah. Waxa laga faa'iidayo ma lahan adiga, ayay tiri. Isku daygii kama aadan helin miya? Waxaa kuu fiicnaan lahayd inaad alleh la tashato inaadan isku dayin. Run ahaantii Haashim wuxuu lahaa nolol adag oo ay ku gadaaman yihiin xeerar iyo qawaaniin uu ka dhaxlay shaqadiisa culus, wejigiisa murugada badan. Cidaan Balqiis ahayn kama aysan qoslin karin. Waxay ahayd haweeney dhinac kasta oo laga eego uga duwanayd dhammaan dadka kale. Waxaa laga yaabaa in sababta ay ugu duwanayd dadka kale ay ahayd fahankeeda dhabta ah ee ragga, maadaama raggu ay la mid yihiin shimbiraha duulaya oo aysan aaminsanayn mabda'a joogitaanka hal meel keliya muddo dheer ma sii joogi karaan hal guri, oo waxay qalbigooda ku abuurtaa caajis, markaasna waxay bilaabaan baadi goobka guri cusub. sidaa darteed Balqiis waxay go'aansatay tan iyo bilowgii inaysan noqon xaaskiisa oo keliya. waxay u noqotay hooyo, walaal, saaxiib wanaagsan, xitaa saaxiib xun. waxay u noqotay dhammaan noocyada xiriir ee laga yaabo inuu shaydaanku ku yidhaahdo meel kale ka raadi. iyadoo hadalka wadata ayay tiri, madaxaaga shaqada ma kuu oggolaaday fasax? Waxaan u malaynayaa inuu kaftamayo marka hore, balse si dhab ah ayuu iigu oggolaaday, ayuu ugu jawaabay. Haashim isagoo faraxsan ayuu yidhi, 2 maalmood oo aanan la kulmayn dhimasho. daqiiqad walba arrintaasi waa mid aan la rumaysan karin. Wuxuu sidaasi yidhi isagoo aan ogeyn in geeridu ay isla xilligaas khadka ku jirtay oo ay si dhuumaaleysi ah u dhegaysanaysay hadalkooda iyadoo si khiyaano leh u dhowl cadaynaysay. waxay tiri, sidee kula tahay fursaddan inaad ii timaado si aan si wada jir ah u lugayno? xilligan waxaa jira wax kale oo aan jeclaan lahaa inaan sameeyo. wuxuu raaciyey, waana ciyaarta hurdada. iyadoo la kaftamaysa iskana dhigaysa sidii saaxiibkiisa oo doonaya inuu bannaanka u kahaysto ayay tiri, kaale ii aamin, waxaa halkan ka heli doontaa gabdho qurux badan. ii aamin inaad adiga ahayn indhahaygu ma arkaan. ma sidaas ayaad ii jeceshahay? maye, sababtu waxay tahay inaad ila muuqato mid cayilan oo aadan ii dayn fursad aan cid kale ku arko. si degdeg ah ayay tiri, waa inaan taleefanka demiyaa. waxayna ku sababaysay, haddii aan wicitaankan sii wada ilbiriqsiyo kale waan foolan doonaa. markaasay khadka ka baxday isaga oo qosol la dhamanaya. Balqiis waxay sii wadatay socodkii ilaa ay daashay. waxay ku fadhiisatay mid ka mid ah kuraasta dadweynaha. waxay ahayd gabar u eg sida badda. qofkii meel fog ka eega wuxuu moodayay inay tahay qof iska caadi ah, balse dhab ahaantii aad bay ugu qoto dheer tahay sida uu qof u malayn karo. muddo yar kadib ayay ogaatay in dadka ay meeshu ka yaraadeen ayna keligeed joogto. meesha waxay fiirisay taleefankeedii si ay saacadda uga ogaato, laakiin waxay aragtay in taleefankeedu uu dansan yahay. markaasi ayay si hoose nafteeda ugu tiri, bateriga taleefanku u dhammaaday, waa inaan guriga ku noqdaa.
si uusan Haashim u welwelin. Balqiis si ay guriga ugu noqoto marka hore waa inay ka gudubtaa waddada weyn. Wax yar ayay istaagtay laamiga iyadoo midig iyo bidix iska fiirisay si ay u hubiso in waddadu aysan gawaari marayn. Markaas ayay bilowday inay gudubto, laakiin ma aysan ogeyn in gaari si xawli nalalkana ay u dansan yihiin uu xaggeeda kusoo waajahan yahay. Balqiis waxay isku dayday inay gaariga ka wareegto, laakiin ma aysan awoodin sababta culayska uurka iyo sida uu gaariga ugu soo dhowaa awgeed. Ma aysan ka wareegi karin. Gacanteeda ayay ku dabooshay caloosheeda, indhaheedana si xoog ah ayay isugu xirtay. Waxay isku diyaarisay dhammaadka nolosha, laakiin daqiiqadihii u dambeysay ka hor intaynan shilka gelin waxay dareentay gacan xooggan oo dhabarka ka qabatay, si degdegana gadaal ugu jiiday. Markay indhaha kala furtay wax yar kadib, waxay is aragtay iyada oo si ammaan ah ugu jirta laabta Haashim. Waqti ayay ku qaadatay inay rumaysato inay weli nooshahay. Ma fiican tahay? Waan fiicanahay, laakiin caloosheedu way xanuunaysaa. Waxaan dareemayaa in hoosteedu qoyan tahay. Markay sidaas tiri ayuu si degdeg ah u eegay lugteeda isagoo kaashanaya iftiinka nalalka waddooyinka. Haashim waxa uu arkay wax cabsi geliyey. Lugteeda waxa ka qoyanaa dhiig. Balqiis waxay ku jirtay bishii 6 ee uurka, balse waxay muuqataa in cabsida xooggan ee ka dhalatay shilka ay dadejisay foosha. Dhiig baa ka socda. Waa inaan si degdeg ah ku geeyaa isbitaal. Degdeg ayay u geeyeen qolka qalliinka. Dhowr daqiiqo kadib waxaa timiday dhakhtaradii haweenka oo la oran jiray Xanaan. Haashim ayay siisay waraaqo ay wadatay. Mudane Haashim, warqadahani waxay ka socdaan maamulka isbitaalka, waxayna caddaynayaan inaan ku qasbanaan karno inaan ilmaha soo saarno haddii ay xaaladdu qasab noqoto si aan u badbaadino hooyada. Markuu hadalkaasi maqlay, midabkii wejigiisa ayaa isbedelay. Wuxuu dareemay cabsi xooggan oo la mid ah midda ay dareemaan adhigu marka uu waagu baryo iyaga oo ku jira goobtii lagu gowrici lahaa oo ay maqlaan takbiirta ciidda. Dhakhtaradaydii, waxaad i weydiinaysaa ogolaasho si aad u disho gabadhayda. Waxaan rajaynaya inaysan taasi qasab nagu noqon, balse mararka qaar waa xalka keliya ee aanan ku waayi karin hooyada iyo ilmaha. Haashim markii ay waalidkiisa dhinteen, walaashiis ka weyn oo lagu magacaabo Narjis ayaa soo korisay. Waxay siisay daryeel, naxariis, jacayl iyo intii awoodayba, laakiin weligeed ma aysan awoodin ay u buuxiso qalbigiisa meesha ka bannaan. Wuxuu ku noolaa nolol uu si joogta ah u dareemaya in qalbigiisu ay wax ka maqan yihiin, meel bannaan ah oo aysan cidna u buuxin karin. Laakiin Balqiis waxay ku guulaysatay in sidaasi samayso, inay buuxiso booska qalbigiisa ka bannaanaa. Kadib markii waalidkiisa waayey, taasi waxay ka dhigan tahay inuu u arko in waayideedu la mid tahay inuu mar kale noqonayo agoon. Dhakhtaradii ayaa qalliinkii u dhiibtay Haashim, waxayna tiri, Mudane Haashim, waqtigu uu nagu socdaa. Waqtigaasi aad buu ugu adkaa. Waxay u muuqatay in noloshu ay la kaftamayso. 6 bilood oo habeen kasta u ballan qaadayay ilmaha caloosha ku jira nabadgelyo iyo ilaalin. Kadib wuxuu imika ku khasban yahay inuu isbitaalka siiyo ogolaansho lagu soo saaro. Ilmahaagu wuu wanaagsan yahay, balse wuxuu u baahan yahay inuu muddo ku sii jiro qaybta daryeelka ilmaha isbitaalka. Hooyadeedna ayuu si walwal ah u weydiiyey, siday tahay Balqiis? Way fiican tahay sidoo kale. Run miyaad ii sheegaysaa dhakhtaradaydii? Ilaahay baan kugu dhaashee, ma runbaa? Waxay ku jirtaa qolka 451. Waxaad awood u leedahay inaad adigu u tagto si aad u soo hubiso. Wuxuu bilaabay inuu u ordo qolka ay ku jirto xaggiisa. Wuxuu ahaa mid aad u faraxsan, indhihiisana waxaa ka muuqday ilmada farxadda. Wuxuu ekaa sida meyd laga soo saaray qaboojiyaha oo dib loogu soo celiyey naftii. Isagoo u dhex ordaya luuqyada isbitaalka ayuu arkay iyadoo saaran sariirta, daal dartiis la hurdaysan. Si tartiib ah ayuu qolka u galay si uusan hurdada uga kicin. 2 tallaabo ayuu gudaha u qaaday, wuxuuna fadhiistay kursiga cagaaran oo horteeda yaallay, isagoo si xamaasad ku dheehan tahay u eegaya sidii qof u arkayo markii ugu horreysay. Marka loo eego ragga, haweeney walba booskeeda lama buuxin karo. Waxaa jirta naag si fudud lagu iloobi karo, waxaa jirta naag aan la iloobi karin ilaa naag kale ay timaado booskeeda. Sidoo kale waxaa jira haweeney haddii ay tagto aysan booskeeda cidna buuxin karin, iyada ayaa nafta iyo qalbigaba la tagta. Balqiis wax yar kadib ayay indhaheeda furtay. Waxay u muuqatay sidii in dareentay joogitaankiisa. Su'aashii ugu horreysay ay weydiisay waxay ahayd, sidee tahay gabadheennii? Way cabsanaysaa ayuu ku jawaabay. Adiga ayay kuu baqanaysaa. Sidee ku ogaatay inay ii baqanayso? Waan la hadlay. Waxaad la hadashay gabadhaan xitaa hal maalin u buuxsamin. Waxaad u malaynaysaa inaan waalanahay? Runtii haa. Daraasado badan ayaa sidaas sheega. Inaad waalan tahay bay sheegaan. Maye waxay sheegaan in aabbuhu fahmi karo
hamhamta gabadhiisa ma rabtaa inaad ogaato waxay gabadheenna ka tiri. Maxay tiri? Waxay tiri adigu waxaa tahay hooyadii ugu fiicnayd ee gabar heli karto dunidan. Waxay kaloo tiri waxaa tahay qofkii ugu qaalisanaa ee nafteenna iyo qalbigayga ku jira. Waxaadna tahay qofta ay ku dayato hadiyadeeda. Wejigeeda ayaa iftiimay iyadoo tiri haddii aan ogaan lahaa in cabsidaadii cabsanayso ay ka dhigi karto sidan dabacsan, horaan isaga tuuri lahaa saqafka guriga. Murugadu waa qalinka qoraaga. Murugadu waxay siisaa bini'aadanka awood cajiib ah oo ku muujin kara dareenkiisa iyo waxa gudihiisa ku jira. Sidaa darteed, qorayaashu mararka qaar waxay u baahan yihiin inay raadiyaan murugo cusub markasta oo ay rabaan inay wax u qoraan si saamayn leh. Haashim waxa uu maalintaas arkay khibrad u dhoweynaysay inuu waayo xaaskiisa iyo gabadhiisa. Taasi ayaana erayadan ka soo saartay gudaha qalbigiisa. Waxay siisay awooduu si dhaba ugu muujiyo waxa uu qalbiga ka dareemay isagoo yidhi nasiib darrada bini'aadamka haysta waxa weeye inaysan dareemin qiimaha waxay haystaan ilaa ay waayaan. Maanta waxaan si dhab ah u dareemay inaan ku waayay, waana dareenkaas midka iga qasbay inaan nolosha sawirto adiga la'aanta. Sidee bay ahaan lahayd? Waxay ahayd mid cabsi leh sida maalinta qiyaamaha oo kale. Haddii aad halkan soo gaadhay waxaa ka codsanaya channelka subscribe saartid, muuqaalkana like garaysid, sidoo kale aad commentiga bixisid. Intaasiba waa muhiim. Waxaan rajaynayaa qaybaha xiga labaad iyo saddexaadba aad si qurux badan la soo doonteen. Mahadsanid. sidoo kale qaybta faallada waxaad nagu reebi kartaa fikradahaaga iyo wixii aad haysiiba ee tala ah. mahadsanidin dhammaantiin saaxiibayaal.